dhexigtahay waxay leedahay ninkaygu waa nin balwad leh hadalkiisuna aad iyo aad ayuu u xun yahay ayay tiri ma shaqo tago gogosha xataa dhib ayaan ku qabaa ayay tiri oo wuxuu soo seexanayaa ayay tiri isaga oo uraya afka ma cadaysado jirkiisana ma dhaqo markii aan idhaahdo war isu soo nadiifina wuu xanaaqayaa ayay tiri sheekhuna alfaadil balwadda way nagu badatay laakiin su-aashan waxa yara cajab geliyay sheekhuna alfaadil waxa weeye nadaafadda gabdho fara badan oo ka cabanaya ragga oo aan isdhaqinna ama dhinaca nadaafadana iimilo fara badan ayay noo soo direen sheekhuna alfaadil dumarka soomaaliyeed markaad xaafadaha marto catarka iyo unsiga iyo waanadaadi way qaateen xataa heer waxay gaareen ay ka gudbaan oo jirkii la caddeeyo oo xataa dhibaato ay isu geystaan iyagoo isnadiifinaya ama isu qurxinaya raggii laakiin sheekhuna alfaadil waxaad moodaa dhinaca ragga rag wanaagsan oo badan way jiraan laakiin rag fara badan ayaa laga cabanaya arrinta haddaad noo dul istaagi karto sheekhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamaajuuran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلودو وعذر بلودو والدنيا ساك هي آخر واء بلودو نوعية بدن بيلين هاي بلودة أنك الله يو ووحل نقول بلودة قلنا قانو وقاتك سيارك كسب الله يقاتك إلى خمرة يا حشيشك خير بدن أيا كجبة وأنا أريد أوبا هنتاي نستحي أوبا هنتاي نفت هذا إلالي دين هذا إلالي خير كاجي عرور هذا إلالي أفلقاد يا عيدو نبي صلى الله عليه وسلم سمت علي نبي ما أهين من العناد بدن أما من وحل عناد ما أهين مدتك عينا ما أهين بل كان رحيما عليه الصلاة والسلام بشاش بوها يعني مد مرول ابتسامانية أو مصونية أيوها أنس بن مالك حليهي انت أسوى السنة أيان نبي صلى الله عليه وسلم خادمها 8 سنة ولي ما أركن بيدي أصبعه حتى اسكدها بني آدم حاجة دي حتى حيوان دبيراي وحلا متكأ أصبع حتى قعنتي سجاري سما أركن بيدي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه اسكدها حاج كيسة قفك مسلم كأ عرب كإنه إلهي كو عابده عرب كإنه القرآن كو أقريه عرب كإنه ذكر يحسك الله كبضيه إنه النبي محمد كذا صلى الله عليه وسلم إنه دعوة كو جارسيه إنه إصلاح بين الناس وكذا الله كلمة أنفع عيسى الله وتعالى قال عيدو ميا عيدو ما بنانو أفلقادو ما بنانو أريد النبي محمد وأنه ديده صلى الله عليه وسلم ما شقيسته منك رجعه وأنك شقيسوي ورضاب الشقيسنين يا ريركاغا كوبي ليا إلهي سومله لينفق ذو سعة من سعته ورهوينك الله قلت لك إني قرية كشقيان أو أي قرية شوغان أدوك هدام ننتهي وإنا بحضا وإنا صو شقيسا أما نور صو ترتر أما حفيظ كسو شقي أما ديارات الرع أما محالي ترين رع أدوك اللي دوني يا قبضا أبا مسؤول كأه عرور تيبنا أبا مسؤول كأه مالنت قيامنا أبا وحلقاوي دين تيبا لقاوي دين وإيمان كذا وحلقاوي دين وأخلاق ذا وحلقاوي دين ودقاله ذا وحلقاوي دين ودقان كذا وحلقاوي دين ودرحلشة ذا وحلقاوي دين قبضني أبيقي أمانة كوتا ما شقيسنا يوان تشيفيا ما شقيسنا يوان سيحانيا ما شقيسنا يو قبل ودان عنيا ما شقيسنا يو هبينكنا مالنتنا وحان عني هبينكنا قاد عني مالنتنا وان تشيفيا مركان بحنا فدي كدربا كون مقرانيا هذا معروت البورش كلاوني معروت العاناها كعبي وشددادو maxay tahay war shaqaysta oo guryaha ka baxa oo dumarkiina u shaqeeya ninka ragga ah ee akhyaarta ana waa ninkaas weeyaan masalada sariirta kama hadlay hadda waanu tijaabinay oo inta soo jeer baanu ka hadalay laakiin waxaan ka xumahay dadka maanta haddii dadka qaab qurux badan oo wanaagsan sariirta xataa looga cabiri lahaa mishkiladda jirta waxay tahay facebookii baaba maanta
ammaan laga la'yahay mas'alaad ka hadlaysaa oo ummadda loo tawjiinaya nee qaawan baa dusha lagaa saaraya acuudu billah qolaa damcaya inay sariirta ka hadlaan qaab yaa badan bay oga hadlayaan sirriigta iyo xishoodku waa diin wey waxaan doonayaa inaan qodobka oga faa'iidaysto dadka sawirada gabdhaha sawiradooda facebookyada iyo maxaa leeya youtubeyada ku camiranaya ilaahay ha ka xishoodeen war gabadha muslimadda ah waa la ilaaliyaa war gabadh waa la ilaaliyaaye lama ceebeeyo war gabadh waa la asturaaye facsharka lama keeno war gabdhuhu waa gabdhihiinni weeye gabdhuhu waa gabdhihiinni waa walaasha waa hooyada waa habaryarta mawduuc baad ka hadlaysaa sawir munaasiba buu u raadinayaa markaasaa laga yaabaa inuu nee qaawan dusha kaa saaro war ilaahay ka xishooda ilaahay ka xishooda oo malaa'igta garbaha idinka saaran ka xishooda oo gabdhaha soomaaliyeed ee muslimaadka ah sawiradooda daaya booli bayna idinku yihiin oo raalli kama aha oo aakharana waa laydin qabsanaya mawduucaas waa mawduuc xasaasi ah xuquuqda in la sasiiyana waa mas'alo waajiba waa inay raggu ogaadaan xuquuqda la isku leeyahay waxaa ka mida sariirta waa xaq ay gabadhu kugu leedahay wey qodobka ugu dambeeya waa qodobka nadaafadda waa qodobka nadaafadda nadaafaddu waa iimaan caraftu waa wax wanaagsan caraftu waa wehel caraftu waa unsi carafta waa la iskugu soo dhowaadaa caraftu waa waxay diinteennu la timid anas bin maalik wuxuu leeyahay maa masastu yadan gacan ma taabanin buu yidhi lamida gacan ma taabanin buu yidhi xariir iyo diibaad alyana min yadi rasuuliillah gacantii nebi moxamed ka jilicsan yacni nebigu siduu u ahaa caraf nebiga meeshuu maro idgoonkiisa haddii la soo maro saacad kadib waa la carfin jiray xaaskaaga saad u jeceshahay inay iskugu kaa carfiso miyayna xaq ugu lahayn haddaadan isu carfinin oo aadan soo qabaysanin oodan ilkahaaga soo qurxinin oodan ilkahaaga soo carfinin oo kilkilaha timaha kaaga yaalla iska soo rifin oo aadan caraf badan iska soo dhigin qofka see kuugu soo dhowaanaya adiguna waxaad doonaysaa gabadh qurux badan oo isa soo caddaysay oo unsi iyo kamkam uu ka soo carfayo barfuun aad jeceshay uu ka soo carfayo dhar aad jeceshay kuugu soo labisatay af idgoon leh ilka cadcad leh ayaad adigu jeceshaaye say kugu qaabili kartaa gabadhu adigoo uraya say gabadhu kugu qaabili kartaa soo bini aadam ma see laisku jeclaan karaa oo see laiskugu soo dhowaan karaa oo see xuquuq laysu siin karaa jirkani wuxuu aqbalaa jirka kale markuu carfoon yahay afkani wuxuu aqbalaa afka kale markuu carfoon yahay ma af uraya ayaa maxaa la yidhahda ikeen uu qofku ugu soo dhowaan karaa raggu ha isnadiifiyeen rag oo dhan lagama hadlayo ogaada ragga laga calaacalayo war ha isnadiifiyeeno gabdhaha muslimaadkay la nool yihiin sharaftooda ha ilaaliyeen war biyaad haysataa oo saabuun baad haysataa oo shaam baad haysataa oo barfuunno iyo cadaraad haysataa isqurxi oo iscarfi oo iswanaaji wanaaggaana waa wax diinta laga hele ma aha waxay gaala noo meerisay iyo wax meelaha laga soo aqriyey ma aha caraftu reerku waa ku dhismaa caraftu nafta ayaa iskugu soo dhowaata carafta maxaa jecel ilahi iyo rasuulkiisa in allaha yuxibu mutatahiriin ilaahay kuwa isnadiifiya waa jecel yahay ee qalbiga nadiifka ah qalbigooda nadiifiya ee jirkooda nadiifiya rabbulciza waa jecel yahay marka guryaheenna aan nadiifinno sida gabadha muslimadda aba looga doonayo inay gurigeeda nadiif ka dhigto jirkeeda nadiif ka dhigto dharkeeda nadiif ka dhigto fakadalika arajul
ninkana inta laga doonayo waa intaa weeye allahu aclam